الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين اتخذوا سيرته نبراسا لنشر الدين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا رجال الحمد لله إلهي بمهدسكاله إلهي سبحانه وتعالى مهد سبناتي مار والبا يقوب والبا. إن شاء الله تعالى ما أنت سوى ذا بدوننا إلهي سبحانه وتعالى وحي يقرن سيو إنا وحيرك إلهه بشهر رمضان إيو وناقيدة إيا الرحمة ديدة. ما أنت وما الجمعة رمضاننا وحي كله ذا ما أنت لحية طبعا إني مرتقانا أي مدح الله قشرة شاري تولي ولا ريال رمضان وين سوق شيء ما أنت وحي مريسا لحية طبعا وحا هاري وحير أو عن بدنين أفر طبعا عشايا بشي كهاري سيدا درتي ما دام أي بشي رمضان شاري إنتي نو سوق شيء ما أنت لحية طبعا مريسا سيدا سوق كله أيو ولا ريال عمرجيننا وصعدا عمرجيننا سيدا سوق كله وصعدا. waxaa laynoo sheegay qofka cimrigiisu in aanay dhaafin dadka reeb mataqaanaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam calayhi 60 sano ma dhaafaan inta qaalibkoodu. waxaan ognahay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam calayhi inuu ku dhintay 63 maadaama cimrigiinu 60 sano aanu gaarin oo inta badan ka hooseeyo maxaa inoo diiday muddada yar ay nool lahay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali galino wuxuu ina farayno raacno wuxuu inaga reebay inaynu iskaga tagno. maanta Ramadaan 16 ay maraysaa maxaad kaga faa'iideysatay? quraan akhris ma akhriday? ducooyin iyo mataqaanaa iyo tasbiix ma samaysay? mise sidii ay kugu soo gashay wali maanta u taagan tahay? rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofkay Ramadaan u soo gasho oo aan ka faa'iideysan Ilaahay subhanahu wa ta'ala naxariistiisa ka fogeeyo. qofka Ramadaan ay u soo gasho oo aan ka faa'iideysan oo aan quraan akhris akhriin oo aan ducaysan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala gacmihiisa hoos dhigin Ilaahay subhanahu wa ta'ala naxariistiisa ka fogeeyo. wa habaar nabiga sallallahu alayhi wasallam calayhi wa habaaray cid kasta oo bisha Ramadaan ka faa'iideysan weyda. Ramadaan waxayna inoo timaadaa 12 bilood kadib. waa hal month waa hal bil weey. halka bil hadii aad ka faa'iideysataan akoonka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku aadaya oo waxa weeye waa kii rasuulku sallallahu alayhi wasallam sheegay xadiisku Ilaahay ka soo wariyay as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Ilaahay baa wuxuu leeyahay soomka aniga iska leh anigana ka aban marin doona as-sawmu li wa ana ajzi bihi. hatta laynoo sheegin soomka waxaynu ka helayno sababtoo Ilaahay waa qariyay waxa loo qariyayna wax weyn weey. salaada hadaynu tukano waxaynu ka helayno waa laynoo sheegay hadaynu sadaqa bixino ajirkeeda waa laynoo sheegay laakiin soomka laynoo sheegin. walaalayaal wax soo kama aha inaad Ilaahay dartii calooshaadu ay u gaajooto Ilaahay dartii aad u haraadanaato والله بالله تالله إلهي خزنديسا وحوين بيكتهاي. حديث كمدا أحاديث رسول صلوات الله وسلامه عليه يقول لي شهر رمضان أولها الرحمة وأوسطها مغفرة وآخرها عتق من النار. حديث وحمري وحوري سلمان وحلي شهر رمضان صدح بيوقف سنتا طمانك وهرية أولها رحمة طمانك وهرية waxaynu ka helnaa raxmad iyo naxariis iyo xasilooni. wa awsaduha maghfira tobanka dhaxana waxaynu helnaa dambi dhaaf. waa tobanka aynu ku jirno hadii aad Ilaahay subhanahu wa ta'ala gacmaha ku taagato samadii way furan tahay albaabadii jannadu way furan yihiin. haddii marka gacmaha sidaa tiraahdo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ducada waa aqbalaya. waa tobankii maghfirada waa tobankii 12 bilood soo jirtay dunuubta aad sameysay waa tobankii dhaxay lagaga dhaafi lahaa. maanta ka faa'iideyso
shan baa kaa tegay, shan baa ku hadhay. tobanka dhexe waa maqfira, wa aakhiruhaa cidqun min annaar. tobanka ugu dambeeya waa tobanka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ummadda kala saari doono. dadna ilaahay subxaanahu wa tacaala iyagoo adduunka nool ayuu naarta ka xoraynayaa, dadna iyaga oo nool ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala naarta ugu bushaaraynaya. allahu akbar, subxaana allah. marka waa inaad ilaahay tirahdaa, ilaahay kuwa aad naarta ka xorayso, ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay iga dhig. tobanka ugu dambeeya waa cidqun min annaar, dadka naarta laga xoreynaya. intaas oo kun ayaa waxa way naarta laga xoreynaya. walaalayaal, maanta adigaagan i daawanaya, shalay tole waxaa laga yaabaa wiil ama gabar ramadaantii hore sameynaan maanta aanu soomin, laakiin adigu nasiib baad u heshay. ima isleedahay ramadaanta dama waad gaari doontaa, ma ogid. laa yaclamuhaa ila allah, ilaahay cid aan ahayn ma ogid. maanta ayaad nooshahay, berri xataa inaad dhiman doonto ma ogid. ka faa'iidayso, ilaahay dambi dhaaf weydiiso, maqfiro weydiiso, inuu ilaahay kuwuu naarta ka xoreeyo. kumaanka kun ee ilaahay naarta ka xoreynayana inuu ilaahay subxaana wa tacaala kaa dhigo weydiiso ilaahay subxaanahu wa tacaala. ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay haynaga dhigo kuwuu naarta ka xoreeyo. walaalayaal, nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh, caaisha waxaa la weydiiyey, caaisha nabi maxamed sal alla alay slam bisha ramadaan ducada ugu dambeeya ugu badan uu ducaysan jiray maxay ahayd? markaasay tiri, wuxuu odhan jiray, allahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canna. allahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canna. yacni kelmadaas halkaas mataqaana duco ayuu ku celceli jiray nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh. walaalayaal, ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan idinka rajaynayaa kuwa bisha ramadaan mataqaana waxa weeye ka faa'iidaysta, oo waxa weeye ducaysta, oo qur-aan akhris kaga faa'iidaysta. waa inaad lahaataa jadwal ah xilligaad qur-aanka akhriyayso, xilligaad ducaysanayso, xilligaad tasbiixda aad samaynayso. xaggana waa inaad ka soomanaataa. waa haddii aanad soomka aanad awoodi karinna waa inaad cibaadooyinka kale aad samaysaa, oo taraawiixdii aad samaysaa, ood mataqaana ducadii aad samaysaa, oo mataqaana qur-aan akhriskii aad samaysaa. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan idinka baryayaa, aniga iyo idinkuba, inuu ilaahay subxaana wa tacaala kuwa ramadaan ka faa'idaystay allah inaga dhigo. intaa walaalayaal waxaa ii raaca